يا إخواني وأخواتي وأهلا سلامي. halkan waxaan uga mahad celinayaa ninka la yiraahdo Axmed Cabdi Kaariye Qorqor. Soomaalidu qofka wanaagsan oo abaalka u gala ma xasuustaan. runtii aniga siyaasi gooni ah iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed si gooni uma taageero. kaliya waxaan jeclahay qofka daacadda wanaagga sameeya, tabartiisa inta dalkiisa u dadaala, aan ku shaqayn qabiil iyo qabyaalad. runtii ninkaas waxaan aniga aan intaan garanayo u eegayay oo u kurgalayay wax xumaana kuma arag, kumana maqlin. meeshaas maamulka loo dhiibay inkastoonan anigu maamul goboleedyadan iyo aanan taageersanayn, oon anigu taageersanahay Soomaali iyo Soomaalinimo, halkaas iga joogto. laakiin waxaan arki karaa nin programka loo dhiibay, meeshii loo dhiibay ka soo baxay, dadki isku hayay, dad dhib badan oon la maamuli karin, oo rabaadiyaa, oo madaxa wareersan, oo qabiil kala buuxiyey, oo kala cuqdadaysan, oon aan qof maamuli karaa jirin. meeshii ugu dhibka badneed meelaha Soomaaliya dadka ugu madaxa adag ay degan yihiin, dad wanaagsanna ka buuxaan, maamulayo isku geeyo intaa isku hayay ka soo baxay. ogtiin intii ka horeysa meeqa ayaa kala taagneed magaalooyinka iyo xagga intaas wax haysta. laakiin intaas ku keenay dadkii, oo waliba Soomaaliya oo dhan isku keenay, Soomaaliya oo dhan isku hayay, oo dawladdii wax ka dhisayay, oo nidaamkii wax ka dhisayay. runtii waa nin karti leh, waa nin akhlaaq leh, waa nin edab leh. horta waan salaamayaa, halkan ayaan ka salaamayaa, waan u hambalyeynayaa. sharaf ayaad leedahay, abaalkaaga kolley Soomaali kuu gudi mayso, ilaahay kuu gudo. meesha aad hadda joogtay meel ka sarreeda ayaad u qalantaa, waxaad u qalantaa Soomaaliya xil weyn ayaad uga qalantaa, madaxweyne inaad ka noqotood u qalantaa, dalka iyo dadka inaad isku aruuriso ood ka qayb qaadatid ayaad u qalantaa. laakiin Soomaalidu waxay jecel yihiin ninka dhaca, ninka dhiba, ninka tuuga, ninka maaragtay ayay jecel yihiin. marka waxaan rajaynaa ninkan hadda la soo wado in ilaahay uu wanaagga tuso, ka hor dhici maayo. laakiin waxaan aniga niyaddu ku haystaa, qalbiga ku haystaa inay adag tahay in la helo Qorqor oo kale. aday u adkaa doontaa ninkaas. maasha allah, wallaahi runtii inta aan siyaasi Soomaaliyeed arkayay, intii dhibkan uu jiray, ninka ugu roona aan arka weeyaan. nin dadku wada, qof walba iska qancinaya, qof walba maaragtay u faraxsan, qof walba soo dhaweynaya, dadku isugu mid yihiin, waa wax wanaagsan. marka sidaa darteed waxaan kula talinayaa inaan ilaahay kor kuusii wado, meel kale oo Soomaaliya aad wax ka noqotid, dalka aadan ka tegin, aad wax u qabatid, ka qayb qaadatid, dad madaxweynaha xataa Soomaaliya isku sharaxi kartaa isku sharaxdid, ama aad dib ugu soo noqotid oo aadan noqonin kuwa meelahan dabadaha taga, ama macnaha dowladaha deriska ee halkaas kasoo dhibaateeya, jamhada kasoo abuura, ee ka hor taga maamulkii dumiye. kolley dabeecaddaas u malaymaayo inaad qaada doontid. marka waa kuu hambalyeynayaa, waadna mahadsantaan kuleeyahay. waxaa layidhi qofkii aan dadka ilaahay aan u mahadnaqin, ilaahay ma mahadnaqayo. marka shaqada aad qabatay oo dadkaas deegaankaas aad u qabatay, ilaahay baa ka abaal marinaya. adigana sharafay kuu tahay, iyo horumar, iyo abaal, iyo wax lagugu xasuusan doono. waa idin salaamayaa, hala iga gaarsiiyo kolleyinkaas. waan jeclaan lahaa mar inaan la kulmo, oo kolley haddii la nool waa la is arki doonaa. waa idin salaamay.